أنا جو مقعد وياي حسن حسين محمود كنا مقعد الحسن كامل إيمان كانت السنة ضيادي حبنا كسر شديد دقموي كمحمد هيبي محمد موجي محمود هيبي وهل كان عنوانتك كوكبنا إن شير سلايد أو كنت مهادنق يرى اللي قلنا سيد أنا مركب هربا وشاقني وقتي هربا أنا نري وحان مركب يمر لبعض أمهد علينا الله سبحانه وتعالى إلهي بان أمهد علينا مر لبعضك مدحوينها قرن كتمرد الصومال لان إيه أقبلي إرجدي وطقتي إنه عفس نقصه دايك أقبلي مصدحاتك وحمهد نق أهل سوكو بكرن أنو تشيدين إن أحس بعدالة دي دريالك لما أنتي وجوه ريا قدوميها حسبك فيصل علي حسين وحرنتي أنو كهذا اللي لبت بدن كاني دتكو لبسدي وحو أها لب أنو ترسني نمر كهوري لب يعبشو أنو قبلني أيه هاي وأنا نلبي درنتي وأنا نكره لي قلني نقرن كدمانتي قف كستو لبسدي قرن كسومال لبو كره لي قلنينا أنت مركز لقي مادو waxa aan cambaaraynaya runtii oo aanan wax cudur daara u haynin xisbigaanu ka tirsanayn ee la wadani runtii xisbigaas isagaanu ka tirsanayn inkastoo aan markaanu hadlaynay hawsha markaanu galeynay aanan ficilkiisa qabin way dafireen sidaan ugu soo gaadhay markii la wadani anu gola dhaxan ka mid ahay kaalkayga waa ka xisbiga wax allaale iyo wax aanu ka haynaa hadaanu xidhnayn iyo hadaanu soo baxnay midna ma jirto runtii wax aanu ka haynaa oo gurmad iyo muxuu ahaa halgan xataa dadkii noo socday ma ay dhiirigelinin ma iskarab taagin wax allaaliyo xisbiga aanu ku haynaa ma jirto sidaa daraadeed waxaan go'aansanay ciddii abaalka noo gashay inaanu u gudno oo aanu ku wareegno xisbiga cadaaladda iyo daryeelka maanta oo taariikhdu ay tahay kowda bisha saddexaad waxaanu go'aansanay inaanu ku wareegno xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxa kaloo halkan aan ka sheegayaa waxa la yidhi xisbiga muxuu ahaa wadani waxaa in habboon in loogu dhaarto inuu yahay xisbi qaran ee aanu ahayn jabhad dhul xoreynaysa waxa kale oo in loo dhaarto u baahan gudoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo la yidhaahdo waxaa tahay gudoomiye xisbi qaran looguna dhaarto faysal cali waraabe iyo muuse biix cabdi madaxweynaha qaranku inaanay midna colaad u haynin intaa marka laga soo gudbo aanu soo noqdo tala yar baan u jeedinayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne waxaan kugula talin lahaa haddii aad muxuu ahaa ay kula qurux badnaatana inaad qaadato waxa leeyahay ninba waqti uu mala waqtiyadii hore ee dagaaladu socon jireen reer miyiga iyo waqtiyadii waranka lagu dagaalami jiray ayaa nin dagaal baa adkaaday dabeedna nin aan tala la weydiin jirin baa leeyahay ninka inuu yeedhna baloo ninkii baa leeyahay war taliye culka wadad ma lagu dayay buu taladaydu maanta waa culka wadad ma lagu dayay waxaan kala talinayaa laba arrimood oo madaxweynayaashii wadanka soo maray midna aanu ku dhaqaaqin inaad ku dhaqaaqdaan jecelay runtii walaha deegaanka horta walaha deegaanka dhibaatada ugu weyn ee inaga haysata waxa weeye tira badnaan oo aan loo baahnayn wax ay qabanayaan haddaad meesha tagto gasho xafiiska maayirka 23 kilo min shafayl la ordaya ku imanaya iyagiiba qaleynaya dadkiina meel ay u maraan ma helayaan waad ka soo baxaysaa waxa sanadsan bal kuwan uga tago bal maayirku xigeenka uga kuwii markii hore uu qaar waraaqi u bahli u saaxiib hadana kaaga sii horeeya 23 kaas laga shaqeynaya dadweynihii iyo muxuu ahaa wixii hawshii qaranka waxa dayacay waa farabadnaan talabaad waxay noqdeen wax reer soo dooranayaan waxaynu ognahay inay fashil ku dhamaadeen doorashadii beeluhu beel waliba ka ugu liita inay wax weydiinin
aanay tala weydiinin aanay qaadhaan weydiinin aanay xataa ma ka qaadin ayaa waxay leeyihiin waar dadka yaa wax la boobay halkay odhan lahaayeen yaa inna ceeb tiraya oo dadka wax u qabanaya ayaa waxay leeyihiin waar yaa dadka wax la boobay waxaan ku talin lahaa tirada in la yareeyo horta mudane madaxweyne oo laga dhigo 9 ama 13 badnaan 9 ama 12 inta laga dhigo laga soo doorto xisbiyada dhexdooda iska soo sharaxaan golaha dhexe xisbiyadu ay kala saaraan inta xisbi waliba uu qayb u helo uu golaha dhexe ka soo doorto hadhow marka kaxabada goolo waraabowde silanaata xisbigu saaro oo xisbiga looga cawdo xisbigu wariyo kii xisbiga ka baxayaan oo maaxilka iska casilo reer baa soo doortay wax allaaliyo wax laga qaban kara hadda madaxweynaha wax ka qaban karin waxa yihiin ba garan mayno taas waa talabaad mudane madaxweyne kasta oo Soomaaliland waxa doorta waa shicibka waa dadweynaha tan yarta muwaadiniinta maalin iyo habeen marka ay doorasho socoto bacadka u taageeno kuyuga ugu jirta ma doortaan kuwa xilka doonaya ma doortaan salaadiin iyo madaxyaweyn waxa doortaa waa dadweynaha maalinta la doortaa ugu dambaysa waxaan jeclaan lahaa inaad bedeshataa oo aad dadweynaha u samayso 2 maalmood wiigii 2 cisho intaad la kulmi karto dadweynaha la qaabilayaana ay noqdaan muwaadiniin ka hadlaya danta guud ee aan shaxaadoon ahayn dhul iyo wax kale iyo waxay doon boobayaan aanu jirin cid khaasana aan dacweyne laakiin talada ku sheegaya ta wanaagsan ee wadanku u baahan yahay ilaahina waxaan ka rajaynayaa inuu ku waafajiyo dariiqa xaq ah